الله عزة يا شرفت أسقناتي بان كوغو دارشي 5 دقيقة oo waqtigaaga kamid ah naftaada sii baar unug walba oo jirkaa kamid ah naxariista ku jirta bilaadantinimada ku jirta garashada ku jirta waxaynta ku jirta waxbixinta ku jirta nafsadaada jaaniskaasi ay ku fikirto wallahi qofka magacayga Soomaaligayga fahmayo maanta ay waa ka dheregsantaa xaaladda dalkeena ka jirta waxaana kuugu dhaaranaa oo magaca ilaahay saddexdiisaba isku daba dhigaya ilaha azza wa jalla annagoo aan waxba ahayn abuuray inuusan u weynin roob inuusan u weynin nabad inuusan u weynin naq u soo baxa inuusan u weynin cunto u siiyo inuusan u weynin inuu beerahooda ay u soo baxaan inuu daruur intuu dushooda soo saaro roob ka buuxo inay barwaaqiyo bashbash ay noqdaan inay caanaha noo keenaan annagoo magaalada joogna saan uga gadana ayaguna ay waxay rabeen uga bogtaan allaha sarreeya baan ku dhaartay inuusan ilaahay maqli weynin wiilka sanadka jira ama gabadha sanadka jirta oo calooshoodu gaajadu ay qaniinayso ilaa ay naftu uga baxdo inuusan ilaahay maqli weynin inuusan ogaan weynin inuusan dareemi weynin inuusan fahmi weynin inuu og yahay tilaabo walba iyo xanuun walba ay dareemahayaan dadkaas inuu ilaahay og yahay hooyada fiirsanaysa ilmigeeda ilaa ay naftu ka baxda asagoo hooyo dhuuntu waa ay qallalan tahay dhahaya hooyo biyo isii hooyada digsiga cidladaa dab ka saaraysa hooyada dab ka saaraysa si ay ugu qanciso aan waxba ku jirinin wallahi ilaahay inuusan xanuunka hooyadaas ay dareemayso uusan ogaan weynina wuu la socdaa wuuna og yahay wuuna arkaa wuuna maqlaa awoodna umuusan weynin inuu xaaladaas ka dhex bixiyo yaa waaye dadka loo dan leeyahay oo la fiirinayo oo lagu tusahayo waxa ay ka qaban karaan waa dadka intay markay cuntada cunahayaan dheregtu ay dhaafto caloosheeda ay ku sii hirqiyaan waayo carabkaa weli u sii baahan waa dadka ayagoo la dhimanahayo dhar qaali ah soo gadanhaya say xaflada u aadaan dadka ilaahay tijaabinahaya iimaankooda dadka ilaahay tijaabinahaya waxbixintooda dadka ilaahay tijaabinahaya ka naxitaanka ay ka naxayaan qofka walaalkooda oo muslimka ah waa dadka malaayiinka ku bixinahaya xafladaha war ma xaflad baa maantayta noo taalla war haddaan Soomaali nahna ma xaflad baa maantayta noo taalla mar inaan dhar gadanaa noo taalla war ma inaan 3 waqti wax cunaa noo taalla ilaah baa in ku dhaarshay waxaan maqlaysaa dad dhahaya xaqdarradii iyo dhibaatadii Soomaali geysatay baa laga jaraya wallahi ma ahan waxa iyaga laga jarayo waa annaga arkayno daawanayna ayadoo hooyo nafta ka baxaysa annahayna wax ma hayno ayadoo dahabku guriga noo yaalo annagoo talaajadu noo buuxdo oo 3 waqtiba wax cunayno weliba markaan dheeris u baahannahay inaynu ku darsanayno gad ilaah baan kugu dhaarshay haddaadan waxaynin xataa dahabka guriga ku yaala gad bixi ilaa aad gurigaaga intaa ku laabatid aad shayna ka weysid aad bixisid maantayto ilaahay azza wa jalla habrin inaad dhiman doontid allah og bixi ayuutada kuu soo dhacday u dir dadkii ka jar ilmahaaga caanaha 3 waqti aad siinaysay hal mar sii ee badbaadi ilmaga Soomaaliya oo aan 24 saac 48 saac ugu dambaysa aan biyo cabin caana xataa iska dhaaf ilaahay baa ku dhaarshay Soomaaliya kaca lacagaha koontooyinka ku kinjiri doonaan qabriga markii lagu geeyana meeshaas uga dhaqaaqin doontii cidna ma soo xasuusan doonto ilaahay u hormarsada
ilaahay asagoo awoodiisa intuso in arkay inuuba ininka in abuuri karaa buu haddana roob soo dejin waayo suu inkuu kiin tijaabiyo suu noogu tijaabiya iimaankeenna iyo waxaan ka qaban karayna xaaladda soomaaliya wallaahi inuuse wiilka soomaaliya iyo gabadha soomaaliyeed aabbaha soomaaliya oo ilmihiisa daawanaya ilaa naftu ka baxaan ayagoo gaaja hayso inaysan u baahneen ilintayda waayo ilaahay wuxuu uga maqal badan yahay gaajada ilmaga calooshiisa dilaysa ilaahay baan ku dhaartay taasuu uga maqal badan yahay ugana xanuun badan yahay laakiin yaa lagu tijaabinayaa intaad bixin kartiin wax waa haysatiin wax waa haysanaa dadkeennana wax waan tari karaynaa xoogna waa haysanaa yaanaan qoslin qosol ma noo bannaana yaanaan qoslin qosol ma noo bannaana inta ilma soomaaliyeed gaajo u baktinaya annaguna caloosha ku hirdinayna ilaa ay dharagtuna dhaaftay xanjar raadsanno jooji maanta waxaad soo gadan laheed bixi lacagta dir waxaad haysid dir xooggaaga haddaa awoodid dir ilaah baa inku dhaarshay kaca ilaah baa inku dhaarshay maanta oohin iyo qosol iyo wax noocad ma lahana hawl iyo maalgelin waa isku dugnay dad iyo duuye waxaas waa isku dugi ilaah mooye aadnina ma oga ma maqasho tabtaasaan